waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu sameeyay isku aadka koobka General Daud 2019 xilli koobka General Daud oo sanadkaani uu yahay mid aad u xiiso badan. Caadiyan tartankan waxaa ka qayb qaadanaya ilaa 16 kooxood oo kala duwan oo heerka koowaad iyo heerka labaadba. Sidoo kale kooxda koobkan xafadanaysa waa naadiga MCC ama Muqdisho City Club taasoo sanadkii la soo dhaafay ay ka qaadeen naadiga Horseed. kooxda Jenya ayaa ah kooxda ugu badan ee ku guuleysay koobka General Daud iyadoo qaaday ilaa 7 jeer. madashu qoratuurka koobka General Daud oo ka dhacay waxaa ku sugnaa gudoomiyaasha kooxaha, macallimiinta, xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo sidoo kale marti sharaf oo lagu casuumay qoratuurka koobka General Daud iyo horyaalka Soomaaliya Premier League. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed kaasoo ka warbixiyay isku aadka qoratuurka koobka General Daud iyo horyaalka Soomaaliya Premier League. faraxsanahay maanta inaan ka qayb galno munaasabada aad u ballaaran oo halka ka dhacay oo ah qoratuurka koobka General Daud-ka iyo hadda oo aan maaragtay mar dhow bilaabi doono sidoo kale xafladda qoratuurka horyaalka Soomaaliya Premier League. anagoo ku hadlaya madaxda xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxaan maanta si oo rasmi ah u fureynaa qoratuurka horyaalka Soomaaliya Premier League anagoo hore u dhameynay qoratuurka koobka General Daud oo aan rajeynayo sanadkan inay noqdaan sanado qurux badan oo ka duwan xilli ciyaareedii la soo dhaafay. horyaalka Soomaaliya Premier League oo asagana dhawaan noo furmi doono waxaan rajeynayaa inuu si qurux badan ku bilaabmo kuna dhamaado. sidoo kale kooxaha oo u soo diyaar garoobay ayagana inay ka qayb galaan koobka General Daud-ka iyo sidoo kale koobka horyaalka Soomaaliya Premier League waxaan rajeynayaa guul insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. haddaba haddii aan eegno sida iskugu aadeen kooxaha iyo guruubyada ay galeen group A waxaa ku jira gaadiidka, geeska Afrika, batroolka iyo badbaado. group B waxaa ku jira Muqdisho City Club, Horseed, Elman, Dekada. group C Hegan, Jamhuuriya, Waxool, Jasiira. group D waxaa ku jira Saxafi, Rajo, Midnimo iyo Raasan ayaa ku jira 16 kooxood ay ka qayb qaadanaya koobka General Daud. dhan kalena horyaalka Soomaaliya Premier League ayaa isagana la sameeyay isku aadkiisa waxaana kulanka ugu horeeyay horyaalka Soomaaliya Premier League la calaamadeeyo ciyaari doona kooxaha Dekada iyo Midnimo. Dekada oo sanadkii la soo dhaafay ku guuleystay horyaalka Soomaaliya Premier League ayaa la ciyaari doonta naadiga Midnimo. si kastaba ilaa imika lama shaacin waqti uu si rasmi u bilaabo doono koobka General Daud balse maanta ayaa qoratuurkiisa la sameeyay. xiriirka kubadda cagta ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan waqtiga uu bilaabo doono koobka General Daud.